Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's zone. But it's my own, all I have known, where I got grown. Streets we would roam, out of the darkness I came the farthest, among the hardest survival. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we fighting to eat, and when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Stay forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, I will be stronger. Just call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Give you freedom, give you reason, take you higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation's all around us. Staying forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, wave your flag. Whoa. سنتين كوحها هيغان iyo nation maanta runtii naga soo qayb galay koobkan lagu soo dhaweynayay madaxda Israa'iil oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada iyo isboortiga horumarintiisa nagana soo gaaray dalka Kenya magaalada madaxdeeda Nairobi. ciyaarta xiisaha lahayd iyo dadkii ka soo qayb galay dadkii soo aabulay madaxda garoonka iyo waliba tababarayaasha kooxda intaba sidoo kale waxaan celinayna guddoonka sare ee haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyana waqti badan soo hurtay istacanab oo maanta inala daawatay si uu dhiirigeliso iyana gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale ciidanka garoonka heegan sidoo kale maad celinayna dhammaan inta ka soo qayb gashay koobkan waana ku maasantiin in kala ftiin waqtiga qaaliga aad hurteen wixii intaas ka badan gudoomiyaha Israa'iil oo aan ku soo dhaweynay Maxamed Ibrahim Cali si uu idinku maad celiyo kelmadihii ku habboon oo kiraado. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم aad ayaa u mahadsantihiin marka hore waxaa salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed oo qurquruxda badan oo sidaan maanta ciyaarta wanaagsan inoo soo bandhigay sidoo kale madaxda haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ka socotay Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed oo markan laga tagay iyo dhammaan dhalinyarada reer Muqdisho iyo waxqaradka reer Muqdisho waa salaamaya marka labaad waxaan iga mahad celinaa wadankeena oo muddo 20 sano dhibaato iyo burbur ku jiray iyo sida weli aanan uga daalina in horumarka dalka iyo nabadda dalka iyo dib u soo celinta dalka sida aanan uga daalina oo mar walba gacanta heegan ayaan u yeerinaa سان اسكو هرمون waxay isku dhaarsadeen waxa dibadda la keenaa degxumada keenaa inay ka dhowraan waxay isku dhaarsadeen waxa dibadda la keenaa degxumada keenaa inay ka dhowraan Soomaalida dhammaan u dhiciyaan xaqooda isku dhaarsadeen Soomaalida dhammaan u dhiciyaan xaqooda isku dhaarsadeen بسم الله الرحمن الرحيم مدحيغ waa Amina Awkar ee u dheeshay kooxda Heegan ee maanta ay soo qashay munaasabada loo dhigay ururka habeenka oo ku maadsan yihiin maadaama ay horumarinta ee gabdhaha ay SYAO soo gudmaday inay wax ka qabtaan dalka gudihiisa oo ay u dhasheen marka waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan laba ciyaarood oo ay soo bandhigeen gabdho Soomaaliyeed oo iiga ahayd maalintii ugu horeysay ee la kulmo gabdho ciyaaraya halkaas waxa iiga muuqata gabdhihii Soomaaliyeed in ay la soo baxeen firfircooni dheeraad ah iyo in ay u soo jeestaan qaabkii ay uga ciyaari lahaayeen dalkooda haddii aynu aragnay maanta marxalad kasta oo dalkeenu uu soo maray 20 sano kadib in gabdhihii Soomaaliyeed maanta ay soo buux dhaafiyeen garoonkii iyagoo sameynaya ciyaar aad iyo aad u qurux badan oo soo dhaweynta
سبق شدين هذا التيفو مالي صور ديري جبلها شرل مكاتبة أفكار النبي سكاتيغا انتا ديري كابتر النور هي دفتير على صوتنا كاتبي شدين ليلاتا يا دور طبع وحنكون ديبن أقل كايدين نبات كاتبين انتظر النار كل تأثرين دحم تيسيدين دحم تيسيدين Let's get up.